السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ardayda waxaad ku soo dhawaataan maanta muuqaal cusub. muuqaalkana cusub maanta waxaan ku hadli doonaa sidii aan horey idinku sheegayba waxaan ka warrami doonaa maanta sidii balada koon aad ugu lahaan lahaydeen WHO course-ka ay bixiso iyo sidii aad uga faa'iideysan lahaydeen courseska ay WHO ku bixiso online-ka ku bixiso iyo tababarada online-ka ku bixiso sidii aad uga faa'iideysan lahaydeen ban maanta muuqaal idinka samaynaya. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. ugu horreyntii marka aad samaysanaysaan aad akoon ama ku lahaanaysaan WHO course-keeda marka hore waa inaan Chrome-ta tagnaa, Chrome-ta ku dhufanaa, then Chrome-ta markaan ku dhufanaa xaggaa sare ku qornaa google.com google.com ku qorna waa inaan tiraa go. sidaa markuu inoogu soo baxo google.com-kii waa inaan ku qornaa markaa isagana WHO anagoo farta weynaysiinana WHO courses waa inaan dhahnaa WHO courses WHO waa World Health Organization waa hay'adda caafimaadka adduunka koorsi ay bixiso iyo tababaro ay bixiso insha Allah ayaa halkan kusoo gudbisay ilaa 6,000 tababaro ayaa ku jira ciidda ka badan insha Allah markaa aad muhiimka ugu ah. waan search gareynaa linkiga ugu horeeya ee kuu soo baxay ayaad ku dhufanaysaa markaa. then markaa qaabka noocan oo kale ayuu soo baxaysaa qaabka sidan oo kale qaabkan oo kale ayuu soo baxaysaa marka course-ka ay bixiso waa kuwan introduction and emergency and response iyo halkan kale waxaad ku aragtaan use epidemic intelligence system iyo training digital learning key. halkan waxaad ku aragtaan management tuberculosis in children and adolescents. halkan waxaad ku aragtaan tababarada halkaasaad load more badahaysaa sii soconaysa tababarada aad u badan identify oral disease environmental oral hygiene baan ku aragtaan maintenance of gender equality baad halkan ku aragtaan health emergency readiness for response operation baad halkan ku aragtaan load more. tababarada markaa aad bay u badan yihiin tababaro aad muhiim u ah ayaa ku jira markaa oo WHO bixisa ayaa ku jira sida TB iyo kale tababarna aad ka haysato kale. ciwaankan kana wuxuu ka hadlayaa introduction to dengue fever-ki. dengue fever-ki waa tii maalin dhowto laga hadlayo aad noo wareerisay marka kana wuxuu ka hadlayaa markaa dengue fever-ki buu ka hadlayaa dengue fever-ki buu ka hadlayaa marka tababarada waa kuwa weeye. muhiimadda markaan tababaradii aan fahnay waa inaan markaa daba fahnaa bal qaabkeebaan akoon ugu lahaanaynaa. akoonka markaad ku lahaanayso xagga ugu horeysa ay ku qorantahay login ayaad ku dhufanaysaa. then markaad login ku dhufato haddii aad leedahay email iyo password aad hore u lahayd halkaasaad gashanaysaa. haddii aanad hore u lahayna waxaad dhahaysaa create new account akoon cusub ii samee akoon cusub. markaa then waxaad qoraysaa markaa name magacaagii baad qoraysaa tusaale haddaanu idhaahno tusaale cabdi baynu dhahnaa namekeygu waxa weeye waa cabdi warfaa jaamac baa la idhahdaa cabdi warfaa jaamac that's the name. next waxaa ku xiga email address waa inaad meesha ku leedahay. email addresska markaad qorayso waa inaad email address aad hore u lahayd waa inuu leeyahay. gmail-kaagii aad hore u lahayd baad gashanaysaa oo tusaale dan gmail aan gmail aad hore kugu samaysnaa baad gelinaysaa meesha waa tusaale. then waxaad gelinaysaa markaa passwordka aad hadhow ku geli doonto passwordkii baad gashanaysaa. passwordka waa inuu password yara adag aad ka dhigtaa. intaa marka dhamayso goobaad dhahaysaa register garee baad dhahaysaa register for open waan ku register gareeyay wuu ku leeyahay passwordkan markaa waxaad tagtaa buu ku leeyahay you will receive an email for verification in the next few minutes.
verificationka ayaad markaa raadinaysaa camal soo aqoonso emailkaaga inta tagto. The verification link will be filed for 3 days. 3 cisho ayuunbuu markaa saarnaanaya. Wixii 3 cisho ka dambeeya meesha waa laga saarayaa taa macnaheedu weeye. way marka emailkeeni hore inoogu samaysnaa ayuunu markaa tegaynaa soo jeegaraynana insha allah. marsha emailkeeni markaan jeegaraynana waxaan ku dhufanaynaa gmailkeena soo furanaynaa. then waxaan markaa kusii dhufanaynaa open open furanaa. waxaan raadinaynaa markaa verification baan raadinaynaa waa kaa. To get started, please confirm your email address by clicking on the following button. Buttonkan baad ku dhufanaysaa sidaad markaa u confirm garayso ama aad u aqbasho. confirm baynu dhahaynaa. waynu aqbalaynaa. then markaa waa confirm. marka thank you for confirming your email. waa la aqbalay emailkaagii. emailkaagii markii la aqbalay then waxaad imaanaysaa markaa meeshii login-ka passwordkii horeanu samaysanay wuxuu ahaa intaa markaad dhamayso waxaad dhahaysaa login eagle. To help isaan kugu caawiyo improve your learning experience-gaaga, please fill the required file before reprocessing into your course. inta badan horta intaad course-kan intaad bilaabin buu kulisaan kugu caawiyo learning experience-gaaga xogtan buuxi. xogta markaa waa noocma profilkaaga ayaad buuxinaysaa. marka haddaad sawir dhiganayso sawir baad soo dhigan kartaa profilkaaga. cabdi warfa waa kan display namekeena naga soo muuqan doonaa aga waad ku qoraysaa markaa cabdi cabdi waan saxnay. email addresski of beertigaaga xilliga dhalatay baad ku qoraysaa tusaale marriage da fiican baad qoraysaa saa markaa baad ku aqoonsado dheedaf beertigaaga noqosan. maxay tahay professional xirfadaadu maxay tahay xirfadaadaad markaa qoraysaa. xirfadeedu markaa waxaad dhahaysaa waxaan anigu ahay students baan ahay arday baan ahay professionalkaygu arday. then markaa maxaynu sameynaynaa waynu tigaraynayna. intaa markaad dhamayso current and other identify kale additional information kale haddaad sii raacin karto waad sii raacsanaysaa sida preferred language-ka prefer garayso aad danayso English baynu dhahaynaa. additional language-kaaga kale ku dheeraadka taqaano haddaad carabi taqaano kale haddaad Portuguese taqaano haddaad China taqaano wixii ku dheer baad ku qoraysaa. how old are you daadaadu intay tahay ma 20 baad baxaysaa mise 29 mise waad ka yartahay 20 sano. ka hadahana 20 iyo 29 baan u dhaxeeyaa waan qiyaasaynaa. genderkeena genderkaagaad markaa dhahaysaa genderkeena markaa ma male baa tahay ma female baa tahay ma other markaa waxay uga jeedaan dad qof labadaba ah baa jira. anagu se islaam markaynu nahay male-ka ama female-ka dahay baad dooranaysaa markaa. waayahay waxaan isla fiirinaynaa kale waxyaalaha interesting-ka course-ka interesting-ka aad xiisaynaysaa doonaysa inaad ka bilowdo WHO course-keeda aad ka bilowdo aad xiisaynayso ayaynu isla fiirinaa. marka course-ku aad bay u fara badan yihiin koobaad xiisaynaysaa marka ma certification baad doonaysaa mase inaad learning program inaad further aqoon dheeraada inaad ka course-da rabtaa se something to do the free time general interesting mise free-gaad xiisaynaysaa. marka anigu waxaan doonaynaa certification baan doonaynaa shahaado ayaan u baahannahay certification baan u baahannahay shahaado. waayahay waxaan kaloo u baahannahay marka wana following online course-keena markay noo socdaan maxaad apply garaynaysaa best online waxa ugu fiican aad doonaysaa inaad barato maxaad aad ku baran karto. waxaan ku doonayaan ku barto video lectures inaan barto audio lectures PowerPoint inaan helo inaan animation heli karno inaan exercise and case study heli karo live discussion haddii loo baahdo inaan heli karo quizzes self assessment iyo quizzes baadan heli karo. marka waad saxanaysaa hadba intii aad u baahatay doonayso inaad wax ku fahmi karto adigu ayaad markaa saxaysaa. how you worked and disease outbreak epidemic maad ka shaqaysay past sanadihii ugu dambeeyay lasoo dhaafay maad wax ka shaqaysay oo kale haddii su-aasha noocaas oo kale weydiiyo anigu waxaan idhahnaa kamaynan shaqayn ama yes haddaad markaa ka shaqaysay maxaad interest garaynaysaa aad xiisaynaysaa inaad markaa ka barato. waxaan doonayaa inaan barto tusaale ahaan oo kale risk communication science management and leadership waan u baahanahay health aging oo kale waan u baahanahay others iyo waxyaalo kaloo dheeraada haddeed heli karayso waan u baahanahay waad garaynaysaa. current nationality-gaaga wadanimadaada Soomaaliya ayaanu raadinaynaa.
waxaan raadinaynaa Soomaaliya ku dhufanaa. miyaad online courses qaadatay 6 bilood ugu dambeeyay haddaad qaadatay yes baad dhahaysaa currently enrolled hadduu qaar ku socdo yes previous haddii kalena currently enrolled hadduu ii socdo haddaad dhahayso horaan iigu socday no hadduu yahay no baad dooranaysa. waayahay haddii jirto markaa where did you hear about open xageed ka maqashay bal WHO coursekan xageed ka maqashay marka social media ka arkay marka insha Allah waad ku qori kartaa waxyaalo kale meelo kale aad ka aragtay hadii jiraan iyagana waad sii select garanaysaa. country your currently live in wadankaad hadda ku nooshahay baad noo sheegaysaa xageed hadda ku nooshahay hadda waxaan ku noolahay ma dhahayso Soomaaliya ka dooranaysaa waayo hadda Soomaaliya ku noolahay. intaa markaad soo dhamaystirto wax kale kuma xigaan haddaase marka intaas soo wagtay mid passwordkaaga bedelaysaa mid ma akoonkaaga miyaan kaa dhigarayaa oo aad permanent delete ma ku sameeyaa haddada akoonkaaga marka password ka bedelaysaa waad ka bedelaysaa aad ka bedeli kartaa dhib male marka intaa information ka yar buu kaa rabaa markaad information ka soo buuxiso saasaad u soo rajiidaysaa bas digniintii wixii meesha uu ka saarayba inay ogaasaad soo furaysaa aad ku anfacaysaa courseska inooge dan waxaad samaynaysaa marka courseski inaad meeshaan ka gasho courseski markaad sidaan oo kale aad u gasho waxaa jira course ciida ka badan oo marka ay bixiso WHO haddana ku mid yaro tusaale ka bixina identify oral diseases ka and promoting oral hygiene ka haddana ku dhufano kaasoo kale markaad saas oo kale aad soo furto casharkan oo kale wuxuu leeyahay markaad saas oo kale soo furto waa coursekan koobaad waxaan ku qaadan doonaa identify the oral hygiene ayaan ku qaadan doonaa arka casharkan oo kale marka saas oo kale aad soo furto xogtiisa halkan baad ka akhrinaysaa course information ka xogta course halkan baad ka akhrinaysaa waa kan overview waa shortage and distribution imbalance oral hygiene man ka hadlanaa this online course design waxa loo qaabiyay to build the capacity of health professionals dadka xirfadda caafimaadka barta inay xirfadooda caafimaadka ku sii dhisi karaan baa loo qaabiyay coursekan waxaynu kaaga baahanay kaliya inaad for a better learning inaad si fiican u barato waxa coursekan wuxuu qaybsamayaa 3 model ama 3 qaybood in marka hore la cadeeyo oral diseases and promoting oral hygiene primarily healthcare system talabaad use fluoride varnish to prevent dental caries wax loo isticmaalo si looga hortago dental caries inta badan suuska ilkaha gala marka coursekan ku jira marka course duration ku soconaya bromastel 1 and a half hour hal saac ama saacad iyo badh ayuu markaa soconaya. certificate-ka qaabkaad u qaadanaysa shahaadada waxaad qaadan doontaa markaad coursekan scorekiisa ama imtixaanka yar laga qaadi doono 80% markaad xidho ama wax ka badanba haddaad ka hooseyso 80 ku siimayo markaa shahaado coursekan ayaa qaadan kara waxaa qaadan kara primary health care providerska ay kamid yihiin medical officialska nurseska and community health workerska nurseska iyo midwife dhammaantood wada qaadan karaan enroll course-ka hadda bilow marka course-kii marka hadda uu ku bilaabo course-ka wuxuu kusiinayaa course objectiveskiisi by the end of this modelkan markaad dhamayso ama qaybtan waa inaad intan ka jawaabi kartaa identify structure of the oral cavity and the most common orofacial development disorders ka ku yimaada ka intaas dhiman halka marka negative ku qorantay baad ku soo dhufanaysaa sad marka course-ka aad u sii guda gasho then course-kii marka waxa lagu bilaabayaa muuqaalkiisa baa lagu bilaabayaa course-kii muuqaalkiisa baad markaa fiirsanaysaa oo aad soo furanaysaa markaa din marka saas oo kale casharkii marka daawato fiidiyoogii oo kale wad la soo degi kartaa oo download video wad dhigi kartaa fiidiyooga inuu soo dejisan karnaa waxaad kale aad samayn kartaa material ku qonayso tusaale PDF kisan soo dejin karnaa intuu markaa ka koobnaa oo dhan soo dejin karnaa intaa marka dhamayso waxa ku sii xiga modelka kale inaad hadhow introduction-kii marka ka baxdo modelka kale ku xiga aad bilowdo model 2 aad ku xijiso
resourceski marka dhammaan saas oo dhan aad wado dhammaan wax oo dhan saas oo dhan baad wada marinaysa insha Allah aad baad mahadsantiin dhamaantiin waxaan filayaa inaad fahanteen qaabkii markaad akoon ugu lahaan lahaydeen iyo qaabkii aad u isticmaali lahaydeen dhammaan inaad wada fahanteen ma rajaynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh